madaxweynaha markuu dalka ka maqan yahay ama hawshiisa gudan karin shirka guud ahaan golaha shacabka iyo shirka gudiyada joogtada ahba shirka waxa gudoominaya gudoomiye ku-xigeen koowaad haduu maqan yahay gudoomiye ku-xigeenka labaad sida daraadeed shir gudoonka waxa la wareegi doonaa sida hooyaha uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad laakiin kaliya waxaan rabaa inaan maaday ilaa muddo badan baarlamaankeena u xirnaa fasaxga gabagaba yahay waxaan furayaa shirka madaniyaasha sharafta leh waxaad ogtihiin in ay noo yaalaan hawlo aad u badan kalfadhigi koowaad ilaahay si fiican nagu soo gudbiyay alxamdulillah waajibaad badan aan soo gudanay baarlamaankeena muddadii afartaas balood uu furnaa tii aan maaragtay gudoonka dooranay madaxweyne dooranay ra'iisul wasaare maaragtay kalsooni siinay xukuumadii iyo maaragtay barnaamijkeedan ansaxinay miisaaniyadii 2022 aan ansaxinay kadib dhasadii gudiyadeena baarlamaanka aan dhameystirnay marka muddadii balihii abantaas nagaga dhamaaday weli lama guda galin waajibaadkii uslaa oo shuruucdii maaragtay dalka u taalay oo maaragtay baarlamaankii tobanaad qaar haaf ka dhigay oo maaragtay waqtiga ka dhamaaday iyo qaar weli la bilaabin oo ayagana maaragtay bilaaw ah marka maanta ujeedadeeni aan maanta u soo baxnay oo aan maaragtay statekeeni iyo maaragtay Soomaaliyeed ee Puntland aan u nimid si aan jaanis u helno xarunteen markaan joogno culeys badan aan dul saarnaa xildhibaanada jaanis ma helayaan problema la soo gudboonaya arrin familia la galaya marka sababtaan u soo baxnay oo aan statekan u soo aadnay waxay tahay anaga oo dibadna aadino dalkeenana joogno hadan inaan jaanis soo helno oo maaragtay yaani barnaamijyadii ila naga sugay muddada kooban aan ku dhameysano waxa noo soo socda wad ogtihiin guddigii heer hoosadka asigana noo soo socda marka waxaan runtii idinku boorinayaa maalmaha aan meesha joogno in ay naga soo baxaan aan ku guuleysano in maaragtay jadwalka la naga sugayo oo kalfadhiga labaad uu ku furmaayo inaan maaragtay runtii arrimo fiican aan ka qabano oo maaragtay aan isla meel dhigno marka walaalayaal idinku aad u mahadsan shirkii waa noo furan yahay guuli khayr baa idin rajaynayaa shir gudoonkan waxa la wareegi doonaa walaashay gudoomiye ku-xigeenka Hilbaan Saadiyo marka ajintayaasha iyo qaabka iyo nidaamkaas idinka diyaarsanaya baarlamaanka mishiinkii dhaqaajin lahaa tubti la mari lahaa tilmaami lahaa kala xulitaankii sida ay kala muhiimsan yihiin ajintayaanka hortabinta u leeyihiin dadkii maartay sameyn lahaa baan nahay oo baarlamaanka Soomaaliyeed soo idmiday marka idinku aad u mahadsan shirku waa noo furan yahay hawshiina wada Allah idinku guuleeyo